sanad kasta ku dhawaad 100,000 oo qof ayaa booqda Antarctica, laakiin 300 oo qof wax ka yar ayaa gaadha barta Koonfureed ee dhabta ah ama meesha ugu shisheeysa meeraha dhulka. aad bay u adag tahay in la booqdo sababtoo ah heerkulku wuxuu ka hoos maris 100. farahayga ayaa ku dhawaaday inuu barafku ku dhago. jiraan dhakhaatiir ama isbitaallo haddii qofku uu xanuunsado ama uu dhaawacmaba. safaro badan oo loo tago barta Koonfureed ayaa guuldareysta, laakiin waxaan saameyn doonaa wax walba oo awooddeeda ah. waxaan haystaa 7 maalmood si aan u gaadhno, saacaduna hadda way bilaabantay. safarkeenu ka bilaabmaya Cape Town, Koonfur Afrika. waa markii ugu horreysay aan halkan yimaado, oo hadda waan arkaa sababta qof walbaaba u jecel yahay meeshan. fiiri muuqaalkan, laakiin runta la sheego, hal sabab ayaan halkan u yimid, hal sabab oo keliya: inaan raaco diyaaradda tegaysa barta Koonfureed. 6,130 kiiloomitir ayay inoo jirtaa. waxaan booqday dal kasta oo dunida laga yaqaano, balse barta Koonfureed ee Antarctica waa meesha ugu dambaysa ee liiska riyadayda. si waxay ka dhigan tahay qorshayn lama filaan ah iyo hubinta inaan haysanno qalabka saxda ah, laga soo bilaabo koofiyadaha ilaa galaafyada, gacmaha iyo jaakadaha. waxaan samaynaynaa hubin dhammaystiran oo qalabka ah, marka waa inaad xidhataa. waxay tahay inay madow u noqoto safarka sax. qolkani waxaa loogu talagalay -15 darajo. Although I am praying for an on-time departure, we find out today that our flight... waxaad arki kartaa sida ay tahay marka Antarctica la gaadho. halkan waa -15 darajo. keliya si aad u ogaato sida uu dareemayo in qof kasta oo ku dacaysanaya inay diyaaraddeena waqtigeeda ku duusho. maanta ayaan ogaanay in duulimaadkeena la joojiyey sababtoo ah duuqaan baraf oo weyn ayaa ku fiday qaaradda. waxay noo sheegeen inaan sugno 2 maalmood oo dheeraad ah si aan u tagno koonfurta. raan waxaad haysataa waqti aan ku saaxiibno dadkan. iminkana la saaxiibi doonaa. waxaan dareemayaa walaac yar sababtoo ah waa inaan horay halkaas u tegin, laakiin hal maalin ayaa inooga hadhay. waxaan hadda ku soo toosay war cajiib ah oo ah in duulimaadkii aan ku qoranahay caawa 9 habeenimo. waxaan u soconnaa Antarctica. ugu dambayntii waxaan u dhaqaaqaynaa garoonka diyaaradaha kadib waqti dheer oo sugayey. waxaan rabaa inaan halkaas gaadho, waxaan rabaa inaan horay halkaas ugu tagno. mahadsanid, tani waa diyaaraddeena gadaasheeda. aad bay u weyn tahay. weligii noloshayda hal toddobaad way fiilaan ma noqon. diyaaraddani waa tiina geelin lahayd Antarctica. haddana waxaan ku jiraa diyaaradda. waxaan ku safray in ka badan 1,500 oo duulimaad noloshayda, laakiin waxba kama dhigman hoos u soo degidda Antarctica iyo fulinta daaqadda oo aad aragto qaaradda caddaanka ah. waxaan qiyaasayaa inay 30 daqiiqo ka hadhay degitaanka. waa inaan diyaargarownaa. Antarctica saaxiib, tani waa mid aad u cajiib ah. waan gaadhnay ugu dambayntii. waxaan hadda soo gaadhnay cimilo baraf ah oo aad u qabow. qof walbaaba waa ku xidhan yahay teendhadiisa. waxay noqon doontaa safar adag. ma ogin Antarctica tahay meesha ugu qabow, ugu dabaylaha badan, uguna qalalin adduunka. waxay ku dhowdahay 2 jibaar cabirka Maraykanka, laakiin dad deggan oo joogta ma laha. halkani waxay martigelinaysaa kumanaan nooc oo duurjooga oo ay ku jiraan binjooyinka, boqoradda, kuwaasoo rajaynaya inay la kulmaan shuruudaha cimilada. inkastoo ay jiraan xaalado aad u daran, Antarctica waxay leedahay in ka badan 70% biyaha macaan ee adduunka oo ku jira barafka dhexdiisa, taasoo ka dhigaysa meel muhiim ah oo lagu fahmo korarka heerka badda. sababtaas awgeed, waxaa jira kumanaan saynisyahanno iyo mutadawiciin ah oo xilli kasta ka shaqeeya dhulka sare si la yaab leh. hambaliya saaxiibayaal, waan gaadhnay. tani waa aagga ugu weyn qolka cuntada, halkaasoo aan ku qaadan doono qaar ka mid ah cunto fudud ka hor intaynaan seexan. dhammaanteen waan daalanahay, laakiin waxaa nagu jira dhiirigelin iyo farxad inaan halkan joogno. tani waa hoyga iyo jawiga habeenkii. waxaan joognaa xero la yidhaahdo Wolf Banks oo ah, tani waa mid aad u qabow. guduhu waa raaxo weyn. waxaa jira sagxad yar oo galaas ah. waxaad arki kartaa barafka hoostiinna markaad seexanayso. fiiri taas, halkan ayaan seexan doonnaa. waa 4:00 subaxnimo. aad ayay u aftiimayaa bannaanku. way adag tahay in la seexdo. 9 subaxnimo ayaa lana toosinayaa. waxaan idin tusayaa sida loo xidho marka heerkulku yahay 30 darajo.
si aad u tagto bannaanka. No pants, 2 pairs of wool socks. We need to be extra warm. We can't take chances of feet getting frostbite. Next we have our sweater. We have first down jacket. Then we have our massive down jacket. We got these baffin boots. Then we have our inner gloves. Then outer mittens. Finally we si wejiga oo dhan loo kululeeyo, qaabkaasina waa ka ugu habboon oo la xidho marka heerkulku yahay 30 si aad u tagto bannaanka. Kani waa aagga guud ee halkan. Dhammaantiin waan soo galnay sababta bannaanka aad buu qabow yahay. Waxaan halkan ku cabbi doonaa kafee kulul, waxaana lagu siinayaa waxa loo yaqaan granola steel. Waxaan rajaynayaa inaanu gaadhno barta Koonfureed ee dhabta ah, maadaama taasi tahay hawsheeda ugu weyn safarkan. Laakiin weli waddo dheer ayaa nooga hadhay, dhammaantoodna waxay ku xidhan tahay cimilada. Ka hor intaanu soo soconno koonfurta, waxaan rabnaa inaan wax badan ka baranno sida shaqaalaha goobtani u nool yihiin. Halkan ayaa shaqaalaha White Desertigu seexdaan. Waxaad arki kartaa dhammaan teendhooyinka. Waxaan fuulanaa hadda diyaarad dib loo hagaajiyo oo ah si aan u booqanno noocyada xayawaanaadka ugu cajiibsan ee Antarctica. Halkan gadaasheeda waxaa ku yaalla xero cajiib ah oo ay joogaan penguinska boqorada ah. Kuwani waa penguins aan mar walba rabay inaan booqdo. Waa kuwa ugu waaweyn penguinska oo dhan. Waxay aad u adag tahay in la helo sababtoo ah waxay ku nool yihiin gudaha Antarctica. Waxaan joognaa Qabow, taasoo ah meesha filimka March of the Penguins lagu duubay, mid ka mid ah filimadan aadka u jecelahay. Penguinsku labku wuxuu kunta ku qaadaa ama ku hayaa cagahooda. Shimbirahan cajiibka ah waxay dhex maraan biyaha barafka leh iyagoo raadinaya ugaarsiga. Waxayna hoos ugu dhacaan ilaa 1500 feet si ay u qabtaan kalluun, squid iyo krill. halkan lama deegaanka ah penguinska boqorada waxay astaan u yihiin adkaysi iyo dulqaad marka ay wajahaan duruufo adag. Imikana waxaan galnay god baraf qarsoon oo dhulka hoostiisa ah. qayb naga mid ahna waa weerarsan yihiin inaan ku xayranno gudaha. haye waan hoos u sii soconnaa meel fiiri ka taxadar ha. Okay. Last step. Yeah, this is the crystal cave. We're inside of this secret cave with ice crystals all around us. This is insane. Woo! Wow. In summer, there is a river inside. waxaan gaadhnay imikana winter beer. waxaan ku degnay meel aan cidina joogin mar kale. waxaana toos inoo geynaysa diyaaradda inagoo ka gudubnay gaadhigan. fiiri baabuurkan weyn ee la taayirada waaweyn waa sida jeebney. Just checked into my amazing luxury pod. gaadhnay waxay u egyihiin saldhigga janabi ah. waa yaab waxay u egyihiin inaan ku degnay meeris kale. tani waa cajiib. fiiritan hambalya waan gaadhnay saaxiib. keliya waxaan iska diiwaangelinay hotelkayaga raahada leh cajiibka ah. Water and our cold water. Right now we're somewhere on this top shelf, and later in a few days we're gonna attempt to visit the actual geographic South Pole. We have maalmaha soo socda waxaan isku dayi doonaa inaan booqanno barta Koonfureed ee dhabta ah. a little button and watch what happens. By rules of Antarctica, they'll actually take all the solid waste back to South Africa across the ocean. It is so incredible how luxurious this is out in the middle of Antarctica. And I must say that the company that's putting this on White Desert has been carbon neutral since 2007. They leave no traces behind. Everything that you see here. sida ku cad xeerarka Antarctica waa inaad dhammaan qashinkaada ku celisaa Koonfur Afrika adoo ka tallaabaya badweynta. aad bay u yaab badan tahay sida hadalaya halkan loogu jiro bartamaha Antarctica iyo baraf weyn oo aad u ballaaran. muuqaalka fiidiyowga ma muujinayo sida weyn uu yahay. 1 2 3 There are no smells, no sounds.
If you close your eyes, it's as if you're in a dark black cave. It's completely silent out here. You can just feel the presence. Antarctica waa cajiib sababtoo ah qorraxdu mar walba waxay ku taallaa meel sare oo wax laga yaab leh inaan sameeyo wax kasta markaan rabo waqti kasta. Maalintii oo dhan Antarctica waa mid aad u cajiib ah. Ma jiraan ur, mana jiraan dhawaaqyo. Haddii aad indhaha xidhato waxay u egtahay inaad ku jirto god madow oo mugdi ah. Halkan waa aamusnaan gebi ahaanba. Waxaad si fudud dareemi kartaa joogitaanka dabeecadda. Waa ku dhowaad 11 barkii habeennimo. Dhammaan dadka xerada gadaasheeda ayaa laga yaabaa inay hurdaan. Aniga halkan ayaan istaagay, anigoo ku faraxsan dabeecadda la yaab kale iyo barafyada Antarctica. Waxaan rajaynaynaa oo ku ducaynaynaa in cimiladu sii jirto maalmaha soo socda ka hor intaynaan gaadhin Barta Koonfureed. Subaxnimo berri waxaan qorsheynay howlo xiiso leh. Waxaan golaynaa godka barafka. Weligay ma arag god baraf ka hor maanta. Ma jiro wax la mid ah. Subax wanaagsan. Maanta waxaa dhacaya dabayl xoog leh oo aad u qabow iyo cimilada oo xun. Sidaa darteed hagayaasheenu waxay nagula taliyeen inaan gudaha joogno oo aan nasanno maalintan oo aan sugno ilaa inta cimiladu ka fiicnaanayso si aan u sii soconno una tagno Barta Koonfureed. Marka cimiladu fiicnaato waxaan rajaynaynaa diyaarad kale si aan uga sii soconno Barta Koonfureed. Si kastaba ha ahaatee shidaalku shubista diyaaraduhu ma aha hawl sahlan. Waxay qaadataa ku dhowaad 3 bilood in shidaalku uu ka yimaado Cape Town, kadibna dhul ahaan loo geeyo meelo kala duwan oo laga qariyo barafka si uu sii ahaado cusayb. Tani waa sida ay u ekaato marka diyaaradda la shidaal gelinayo bartamaha Antarctica, iyadoo heerkulku yahay 25 darajo wax ka hooseeya. Waa maalintii 6aad, weli adrenalin ayaa igu jirta sababtoo ah waxaan ogahay in meesha ugu koonfureysa dunida ay ina sugayso. Waxay yidhaahdaan tani waa xerada ugu fog dunida. Unintentional polar plunge. Yeah, we'll skip. Subax wanaagsan saaxiibayaal. Waxaan ku jirnaa 6 meel saldhigga sababtoo ah waxaan si rasmi ah u helay war ah in cimiladu ku filan tahay inaan u dhaqaaqno Barta Koonfureed. Ugu dambeyntii waa dhacaysaa aad baan u faraxsanahay hadda. Waxay qaadan doontaa ku dhowaad 6 ama 7 saacadood si diyaaradda loo gaadho. Waa inaan joogsannaa oo shidaal gashannaa. Sidaas darteed waxaan raacaynaa diyaarad yar. Waxaan si aad ah ugu faraxsanahay fursadaha aan u heli doono inaan tago. Dharka ayaa aad u sarreeya, waa 12,000 oo fiid. Sidaas darteed arrintan yaan loo qaadanay si fudud. Dabcan waxaa jira duufaano soo gelaya. Waxaan samaynaynaa halkan ayaan ka bilaabaynaa. Tani waa diyaaraddii kaale gudaha diyaaradda si aan u soo bandhigno tarka nala socda ee tagay Barta Koonfureed. Haddii ay wax dhibaato ah dhacaan, kaliya la sheekaysa isaga. Sidaan idin sheegay way nala joogi doonaa waqtiguu yimiday. Waxaan fuulaynaa diyaaraddan 7 saacadood oo aan ku gaadhi doono Barta Koonfureed. Waa qabow, aad bay cajiib u tahay. Waxaa laga yaabaa inaan yara garrito markaan gudubno buurleyda. Haddii xaalad degdeg ah ay dhacdo waa hagaag. Waxaad maqli doontaa cod xoog leh. Waxaad maqli doontaan cod xooggan oo aan ku odhan doono degdeg foorarsada hoos u noqo, degdeg foorarsada hoos u noqda. Haddii aan sidaa idinku baaqo, fadlan sidaas sameeya. Waxaan diyaar u nahay inaan ka duulo Barta Koonfureed. Ugu dambeyntii way dhacaysaa. Tani waa -11 halkan diyaaradda ma fiican tahay. Wax badan ma samayn kartid hadda. Ma haysa oxygen. The hard part about sleeping in Antarctica is that it's light 24/7 in the summer. Even when you close the blinds, it's still light inside. You just gotta either wear an eye mask or just count the sheep. Waxaan hadda ku degay Barta Koonfureed. Ilaahayow, halkan ayaan taaganahay meesha ugu hooseysa dunida. Halkaasoo ka yar 3,000 oo qof oo bini'aadam ah ay weligood istaagin. Waa ku guulaystay. Waxaa laga yaabaa inaan boqdo dal kasta oo dunida ka mid ah. Dhammaan adventure kasta ayaa isku soo ururay 1 daqiiqo. Aad bay u adag tahay in la sharaxo dareenka weyn ee mahadnaqayaan hadda dareemayo. Waa xusuusin fursadaha jira markaan geesinimo u yeelanno inaan xuduudeena riixno. Barta Koonfureed ee dhabta ah. Ugu dambeyntii waan gaadhnay. Waa safar yaab leh. You can see why if I do a little 360 here. There ain't nothing around. Fiiriya saaxiibartani waa Barta Koonfureed.
taasi waa waqooyi, halkaa kale waa waqooyi, dhankaasina waa waqooyi, dhankaasina waa waqooyi, balse tani aan joognahay waa koonfur. kaliya shakhsiyaad dadka ka mid ah ayaa halkan soo gaadhay. tani waa riir rumowday saaxiibayaal. safarkan wuxuu muujinayaa waxay Antarctica, Australia ama Argentina. taladeeda ugu weyn waxay tahay inaad qaado tallaabada kalsoonida leh. xidh suunkaaga adrenaliinka oo ha ka fikirin wax badan. iga raalli noqo waxay noqon doontaa go'aanka ugu wanaagsan ee noloshaada.